هو بيهعب هو بيهعب يا هو بيهعب هو بيهعب يقبو بيهن قلص يقبو وقبي هذا قلص بيهن انها كاغشو من وقبي كنا كنا وقبي راله غفيه وكل كتبه يا برنقه كتبه يقول قال غفيه سحر يا توريا بلا يدان قاع مكو سميس كان شقين على يابي نقشقين اي كي وع بالإيكادي والتليفون كان يقبل وعلك وها ابي ورا تليفونك قلت ايوه اي كل لك ويا الوثق يو او ترتيب ودada maroy maxaa kugu dhacbal anaku iman xafid iikaadi aday ku taala wacd la aday horma ilay ka qabsanin allah hormudki aw روكن hormudki malena خسارة استأجي بلايا لكو انتو يجي ما الزمن كان بيواي هرموت كادو يقول منا ونصيب ليا كان حو بيقوم مهم سنة جاي وحي يقول يا ابو رويل كيغو امس يا ابو حرو دلدن لو دار marka dhalada hadda u daarina waa kagan xinina shibdaya ya haya aba musa abu dar ana u daara adiga faraska baxa lagu madarsanay ya warbo shid muuse daray مو شقيناس نوفو بالكنا دارين يا مو شد مسه ابو اي ما ترى لازم انا هلي markii tan ugu skorta isku cinaysa dhalada jibinay miya aduu ku dhantii u kharabiyo telefiga soo wac bilaa ya ruux waxa ku dhacaban naftii ku dhajiyo war ila hormuud kan gadaal ku haya gacan ku taabtay meel bari xisla meesha riixadana ya aba hamar hormuudkii ana ma iskaabanay idib hormuudkii كان hormuudkani abiha iga dilaan bismillah salcal ku dil oo naftu ku jiibay qaybtii koowaad waxay mareysay James oo lagu dhahayo isbitaalkan adaa yimaadii lacagta iska bixi wuxuu weydiisanaa marka xoogaa daqiiqada ah ma sii kartaa iyadana ma ka diidaysay way ka ogolaaneen James telefonkiisa intuu soo bixiyo wuxuu fiirinaa lacagta uu haysto wuxuuna arkaa inay aad uga yar tahay lacagta laga rabo isagoo meesha iska taagana waxa uu imaanaya ninkii uu hamiin dhaweeyta lacagta siinay wuxuu ku dhahaa marka adiga miya kala wax yar ayaa rabaa inaa ku soo tusay James ninkan hadalkiisa ma ka diidayo oo soo raaca kadib waxay soo galayaan qol ay ku jirtay ninkan xaaskiisa soo dhawaaw ku dhahaa waxa la kulantaa xaaskayga Liili iyo wiilkeena yar oo hadda dhashay intuu gudbo waxa uu tagay xaaskiisa wuxuu ku dhahaa ninkan aad u jeedid waa James ninkii hamiin dhaweeyta iyo caawinayay iyadana James waxay ku dhahaysaa wax fiican ah habeenkaas sameysay inagana ma ku iloowi doono kadib James wuxuu weydiinaa qoftaan cunugaaga yarka magaciisa maxaa waaye iyadana waxay ku dhahaysaa waxaan u bixinay isaga James markii uu ogaadana inay cunuga yarka isaga ugu magac dareen qoftaan ninkeedu wuxuu ku dhahaa waxa rabaa inaa banaanka wax yar ku wada hadalno waa hadii ay caadi tahay oo aan dhibaato u arkaynin iyagana ma ka diidayaan oo ninkan wuu soo baxaa banaankoona u soo raaca kadib James ninkan wuxuu ku dhahaa horta waa kugu hambalyeena cunugaaga yarka ah ku dhashay sidaada oo kale anigana xaaskayga way dhalaysaa oo isbitaalkan ay joogtaa waana markii ugu horeysay anigana hadda fikradan ma ka heesto sidii aan u bixi lahay lacagta uu isbitaalku naga rabo marka hadda waxaan ka rabnaa inaad arintan naga caawisiin waa hadii aad awoodiin kadib midkana James wuxuu ku dhahaa lacagtaada oo dhan maxaa aniga ii siisa marka hadii ay dhibaatadan ku haysato wuxuu ugu jawaabaa waxaan waa wax saxan oo aan mar walba anigu sameeyo hooyadeeya mar walba waxay ugu dhihi jirtay wax hadii aad baxsato way ku barakoobayaan laakiin wax walba oo asbuucan dhacay ma u maleynaayo hadii aan si aamini doono hadalkaas hooyadeey midkana wuxuu weydiinaa marka adiga shaqo miyaa raadinaysaa James midkan wuxuu u sheegaa inay shaqo u haysto laakiin ay iyagu mushaarkoodii ka goosteen midkan James wuxuu ku dhahaa horta aan isku sheego magacaygu waa Sam Franks kambaniga magacaas watan aniga iska leh James markuu hadalkaas maqlo wuxuu dhahaa kambanigaas waa mid aad u weyn qofkan hadda ma adiga isna wuxuu u sheegaa inuu raadinayo manager cusub managerkaasna inuu ahaado qof la aamini karo marka hadda waxaan u maleynayaa inaan qofkii aan raadinayo adiga tahay marka kuwaas oo mushaarkaadi ka goosteen isaga soo tag James markuu hadalkaas maqlay aad ugu farxay hal bil kadibna James waa kana isagoo la barayo tiimkii oo la shaqay lahaa isbaritaankii isagoo socda waxa imaanaya naagtan iyo ninkeeda oo aad ku soo aragteen qaybta koowaad wixii ay sameeyeen midan James markii ay meesha ku aragtay waxay dheesaa midkan muxuu meesha ka sameeynaa kan markii oo weydiiyay labadiina ma istaqaaniina James u jawaabayo wuxuu dhahaa
naagtan iyo ninkeeda aniga iyo xaaskayga hal bil ka hor waxba nooma reeban. sheeko dheer uu James ka sheekeeyey kadib midkii booska ahay labadaa wuxuu ku dhahaa labadiinaba shaqada waan ka buriyey. intay yaabaanay waxay isku dayayaan inay doodaan laakiin albaabka intuu ka furo wuxuu u sheegay inay bixi karaan. ma jiraa marka hadal ay hooyada kugu dhahday mase tiimkii kabta laga daba tuuri jiraa ku jirtaa. soo dhawaada ninkan waa nin boos ah oo xafiiskan iskale gabadhan shaqaalayaashiisa kamid ah u imaanayso isagoo teleefon ku hadlaayo. teleefonkiisa markii uu dhammaystana gabadhii wuxuu ku dhahaa maxaan ka caawiyaa. waxay ku dhahaysaa waxaan kaa rabaa inaad mushaarkayga ii kordhiso sababtoo ah aniga shaqada xilligeedaan ku imaadaa sidoo kale shaqada si fiican u qabsadaa. ilaa iyo haddana shaqaalayaasha si xun ulama dhaqmin marka waxaan rabaa inaad mushaarka ii kordhiso. isaguna maba ka diidayo waa ka ogolaanaa laakiin wuxuu ku dhahaa waxaan kaa rabaa inaad hal wax ii samaysid. waxaan kaa rabaa inaad gurigayga ii raacdo oo aan waalidiintayda u wada tagno sababtoo ah iyaga maalin walba waxay dhahaan ma guursanaysid miya. sidaas darteed waxaan kaa rabaa inaad iska dhigto in aan adiga iyo anigu wada soconno mardhowna aan isguursan rabno si ay iyagu cadaadiska iga daayaan. iyaduna waxayba taagan tahay waxaan rabaa inaad mushaarkayga ii laba jibaarto. arrintaana waqti koobanay soconaysaa taleefon dhanna miga soo wicishid heshiiska hadduu sidaas yahay waa ogolahay. isaguna wuxuu ku dhahaa diyaar waayo wax dhan ma ka qabo labadoodina meeshii ku heshiinayaan. intii ay u soo socdeen dhinaca gurigiisa gabadha wuxuu u sii sheegaa in waalidiintiisa marmarka qaar ay maalayacni u qoslaan marka inay isku dayda inay u dulqaadato. xoogaa kadib gurigiisii ay soo gaarayaan hooyadiisa intii albaabka ka furtay waxay bilaabaysaa inay si kal iyo laaba u qosasho. isagana wuxuu bilaabaa inuu hooyadiisa qosalka ku darsado midaan oo la yaaban waxay ku qoslayaan ayaa waxaa imaanaya aabbihii isagana qosalka ku darsanaa. markii ay arkaan in aysan gabadhan qoslaynin labadoodaba niyaddaa ka jabayso. xitaa markii qadada la gaaray oo ay wada fadhiyeen miiska qadada mar labaad ay tijaabinayaan labadooda way wada qoslayaan laakiin midaan qosalka ma ku darsanayso. xoogaa kadib midkii la socday intay gees ula baxday waxay ku dhahaysaa arrintan ma samayn kari waalidiintaada way waalwaalan yihiin. isaguna wuxuu ku dhahaa heshiiskayga waa aqbashay labadeennana waa wada heshiinay marka adiga heshiiska maxaa uga baxaysaa. haddii aad heshiiskan ka baxdid anigana heshiiska waa ka baxaa sidoo kale. haddii aad rabtid inaysan arrintan dhicin adiga heshiiska ma ka bixaysid anigana heshiiska ma ka baxaayo arrinteenna hore oon sii wadanaynaa. arrintaana waqti yaray soconaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaad u dulqaadato. ugu dambayn way ka ogolaanaysaa waxayna ku soo laabanayaan meeshii ay waalidiinta joogeen. kadib hooyadiisa waxay ku dhahaysaa intaa baxdid cabitaan noo soo qabo isagana waa baxaa si uu cabitaankii u doono. markii uu midkaan cabitaanka doono aabbaha gabadha si fiican u wareysanayo wuxuuna ku dhahaa midkaan sidee isku barateen. midkaan waqti dheera waxaa ku dhihina gabar keenso ee adigu ma ku qanacsan tahay. waxay arkayaan inay gabadhan jawaabaha usoo gaagaabinayso kadib waxay ku dhahayaan adiga maxaa kaa qaldan. iyaduna waxay bilaabaysaa inay shaxdii ku dhiisho arrintii dhan ay qarqarinayeenna way u sheegay. waxay ku dhahaysaa aniga waxaan ahay gabar shaqaalaha oo ka shaqaysa wiilkiina shirkadiisa. arrintan arooskana wax ka jira ma laha isagaa wuxuu igu qasbay inaan inta imaado kadib markii aan weydiistay inuu mushaarka ii kordhiyo. marka sidaas darteeda waxaa uu jilayay inaan isaga saaxiibadiis noqdo. xoogaa kadib waxaa imaanaya midkii cabitaanka doonay isagana wax dhan maba la socda wuxuu taagaya sheekada xageynii mare. labadaana waa kuwaana ciil dartiisa way qarxi rabaan. wuxuu weydiinaa maxaa qaldan aabbihiisa isagoo xanaaqsan u jawaabayo wuxuu ku dhahaa adiga beenaalaa tahay waxaas waaye waxa qaldan. waraha gabar shaqaalahaada kamid aha soo wadanaysaa kadib anigaa noo keenaya si aa saaxiibadaa uga dhigato. hadalkaas markii lagu dhaha gabadhii intuu kusoo jeesto wuxuu ku dhahaa shaqada waa kaa buriyey. laakiin hooyadiisa aabbihiisa waxay ku dhahayaan guriga nooga baxay intaanu ku cunin. markii uu midkaan meeshii isaga tegey aabbihiya gabadhii inta u soo jeesto wuxuu ku dhahaa waa ka xunnahay wax walba oo midkaan kugu sameeyey. hooyaduna gabadha waxay ku dhahaysaa annagaa shirkadeenna ka shaqaynaya hadda kadib lama baahna inaad shaqo ka walweshid. iyadu way aamini weynaysaa waxay maqlayso kadib waxay weydiinaya dhammaa ka hadlaysiin. waxay ku dhahayaan hadda waa iska bixi kartaa anagaa ku soo wici doona biri subaxdii. muuqaalkaana intaanu ku ekaay ee hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar. waa mid ka mid ah aroosyada naadirka ah ee dunida ka dhacay. arooskani waxa uu aroosyada kale uu uga duwan yahay waa arooska keli ah ee 4 milyan oo ubax loo adeegsaday. hadda bal adigu qiyaas haddii aad tidhaahdo hadiyad ahaan qof ugu qaad hal ubax ayaa ugu yaraan $10 lagaa siinaya. bal ka warran ninka 4 milyan oo ubax arooskiisa ku taxay. ilaa ka soo qaybgalayaashii ay ku sigteen inay indhuhu ay ka dhacaan quruxda iyo indha daraandarka hoolka awgii. waxaa xaqiiqo ah in nin walba uusan ku dhici karin in uu hoolka arooskiisa noocan oo kale uu ka dhigto marka laga reebo nin jeebkiisa huba oo isku tashanaya mooyee. allaha u naxariistee boon xirsi ayaa waxaa laga hayaa adoon qadaynin quraacna haysan safrad qaraarka qalbi dilaacsan hablaha quraysheed qoraansigooda qaladba weeye. hadda ogow haddii aadan ahayn taajir sidaasi oo kale ah oo beeraha uga dalbanaya 4 milyan oo ubax inaadan u dhowaan karayn xaflad noocan oo kale ah. ubaxyada waxaa lagu taxay dhinacyada jidka ee ay dadku ay marayaan oo dhan kor iyo hoos iyo meel kasta iyadoo uu xitaa ubaxii uu qariyey luulkii iyo dahabkii laga soo buuxiyey gabadha aroosadda ah ee reer Qatar.
koox muusig wadareed ka tunta ayaa si khaasa xafladda loogu martiqaaday iyadoo loo sameeyey ciyaaro aan laga aqoon meherijaankii waaweynaa ee isu soo baxyada lagu soo bandhigi jiray aad baad u mahadsantihiin Bulqaas Media ayaad nagala socotaan